بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتأت بقى نصيبنا دكتور بقى قرط سأوس الجبيني بين الدكتور لكن الميكروفون كوامي اللي هي قالوا المقصد لي وحترتها waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa mudane professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaan ku leenahay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wixii aad ummadda u qabatay wanaag iyo horumarka aad soo gaarsiisay Soomaalida mooyaane caalamka oo dhan ayaa laga ogyahay mana aha mid aanu kaaga mahad celinayno kelmadu xaq jirta carabiga la shukran cala alwaajib la yiraahdo waa wax waajiba muqaddas kugu ah in aad Soomaaliya ka soo saartay dhibaatadii iyo dadkii baabiinayay aad gacanta ku dhigtay adiga iyo gruubkaaga taasna kaaga mahadnaq uguma adbaanin ruux Soomaaliya iyo ruux ajnabi intaba wixii aad geysatay waxa uu geysatay wajiga Ilaahay ayay xaqiis ku jirtaa intaas waxaan uga baxayaa wax qabadkii aad wadanka u qabatay midda kale waxaan rabaa saddex qodob oo gaagaaban oo halkan masawirka Cabdiweli ku hoos yaala in aan dadka taabsiyo waa Ingiriis bay ku qoran tahay waxa fiicneed inay Soomaali ku soo qoran maadaama Soomaali imanaysa meesha waxa ku qoran qodobo badan Cabdiweli hoosteeda ay ka mid tahay sinaan iyo cadaalad iyo xuquuq yaa ku hoos qoran saddexdaas qodob dadka ay qusaysa ayaan ka mid ahay maadaama aan gudoomiyaha beesha Gabooye ee Norway aan ahay saddexdaas qodob si khaas ah ayay ii taabataa waayo waa saddexda qodob oo aan u baahanahay meel walba iyo goob walba ay Soomaalida isugu timaado bal inay is xasuusiso sida suuradda wal casr isku xusuusiyo oo kale in la isku xusuusiyo ay muqaddas tahay horta haddaan ka soo bilaabo dhinaca sinaanta wax sinaan la yiraahdo inaan jirin mudanahan waa og yahay Soomaalida meesha joogtay waa og oo kala sareyn ay wili Soomaaliya taalo mid cadaaladana waxa la maqlayayba xilliyadii dawladda hore jireen qofkii la qabto oo qasaas lagu fulinayo waa qof Gabooyaha oo aan awood lahayn marun baan masawaabeen Allah yaclamu rasuul وهذا واحد جواب يقول توحي جواب متى كلام حقوقنا حتى واحد تابعتي أي كشيء أو وجود بيسي مدنها عبدولي محمد قاس أبو ماتين قف موادن وصومالي أو إلا ودون المتردو دباتوينكي يبربركي ووطن كسو ساري أو دكي كوري كسو ساري وين لكن مدة أن دولتي ورئيس الوزراء وها أن حوجا يكون مسؤولنا بواحد هاي عبدولي وحو مرة وضم بدل وحو كان حريرية بدل كان متهاي حرير كي إن أرضية الصومالية وحبرشة لغسيو وضن كتركيا سكولرشيب كيف مرتي أنا ولا حريرني دتي سكولرشيب كلا قاضي دتي معمولي أن وحاي مقالة أون هو مقالة معاني هل أرضية وجبوية إن أنا موجود على الكاسة دولتي سكلية معها دولة كرسي مكتئة وحاكم صدق دولة فدرال يرادو وحي ترتي سدح بقول يدور أرضي أو بوحسي كل أرضي كتكتي أرضي دي عبدولي محمد قاسو بالله إن أيو درام وطن تركيا سدح دي بقول أو دولة فدرال كي ترتينا كد المركي على حديبان نمكوي كجرة إن برلمان الصومالية إن وحنا يشارك إن أنا كجرين هل أرضي أو جبويا مركو وحن كده ده وحن عبدولي محمد علي قاس قعد سنة يعني السنة حرير كيسيسي وطن رئيس الوزراء هرنا سياسة أنا كويلو كجرو وحن قعد سنة يعني بالقرب كاس عدة وكلك عشرة مع كلك عشرة إن باشا إن ساحة وحبرشة الوسر اليوم ده كان باشا جبويا واحد وحوجا بحكرام كلية وعيقه وحلقاره نكي هذا يقول خطبته وحش شيء عبدولي محمد قاسين وتجي توله هوية اللي كنتها أن توله هوية وما تجي عبدولي هوية ملح وما تجي توله اللي جينين باش الجوية حاسة قبيل كل هذا ما تبعه توله ما قاعد اللي هذا حرج عليه ومو ستجي هوية إنه بقى وحو تجي
beesha gabooye dhibaatada ay qabaan dowladda xeer jaalle ay ku qabaan inuu soo geeyo هنا أركي حقيقي وحو أركي لبقل أو محي إسبيتال هان بسن وحونا قبل قاضي حسابتي سخاص كأخ إنه هو نسي إسبيتال وحنا كولا هرلاني رئيس الوزراء بل إسبيتال إنا نكبر دلو إن أنا أقرب قاضي ندتك سكول واي وحو سؤال كي إن أنا ماشي سكول جري مركب وحنا ربنا إن أنا عبدول وحنا كعد سنة يا بلنكي وكسر قاضي إنه فليو ووضد وقعانك وسوق وفليو أنا كقدوميها ولا قرب تاجنا هاي إن عم باشي اللي حرير وضم والبيت جوجان سيان ولا قبل الله المشروع عاصم وصابر القاضي بروفيسور عبدول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.